السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararka Grand TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah beesha caalamka oo heshiis kala dhex dhigtay mucaaradka iyo dawladda Soomaaliya soo gabagabaysay khilaafkii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug oo mooshin xilka qaadisa ka wada madaxweyne Qoor-Qoor xogo cusub oo laga helay dhalinyarada Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eritrea halka ay ku dambeeyeen iyo ujeedada loo tababaray dawladda Kuuriyada waqooyi oo xayiraad ku soo rogtay Soomaaliya waa maxay ujeedada wararka Grand TV ayaad ku daawan doontaan mucaaradka oo madaxweyne farmaajo ugu baaqay inuu san siyaasadayn oo hinta hooyooyinka Soomaaliyeed ee ay ubadkoodu ka maqan yihiin iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ka badbaaday qarax lala beegsaday qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Grand TV oo diyaar garooba ay ugu dhamaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Grand TV oo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhac warkan ardan kugu sheegayba beesha caalamka ayaa qaboojisay xiisadii siyaasadeed ee ka taagnayd Soomaaliya ee u dhaxaysay mucaaradka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe salkana ku haysay ismaandhaafka arrimaha doorashooyinka kadib dadaal dhowr maalin qaatay oo garwadeen ka ahaa u qaybsanaha qaramada midoobay ee Soomaaliya danjire James Swan ayna ku jireen wakiilada midowga Yurub iyo midowga Afrika ee ugu magacaaban Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu dhameeyay inta badan khilaafaadkii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka ee u dhaxeeyay midowga musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya ee garbiyada mucaaradka madaxtooyada iyo maamul goboleedyada oo markii hore ku heshiin waayay qabashada doorashada Soomaaliya ee 2021 oo waqtigii loo madlanaa iminka uu gabagaba yahay walina ay dhinacyada Soomaalidu xal gaari waayeen hase yeeshee beesha caalamku ay si toos ah u faragelisay heshiiskan oo ay garwadeen ka tahay beesha caalamka ayaa la sheegay in la isku afgartay in xubnaha guddiga doorashooyinka wax ka bedel lagu sameeyo meeshana laga saaro dhammaan shakhsiyaadka ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo shaqaalaha madaxtooyada Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka howlgala waxa sidoo kale lagu heshiiyay in xubnaha lagu bedelayo kuwa ay mucaaradku dalbadeen in meesha laga saaro ay noqdaan xubno lagu wada qanacsan yahay oo dhexdhexaada dhinacyada ayaa la sheegay sidoo kale inay isku afgarteen in guddiga maamulaya doorashada kuraasta xubnaha gobolada waqooyi ee Muqdisho ka dhacaysa uu noqdo guddi dhexdhexaad isku shaandhayna lagu sameeyo guddiga iminka magacaaban oo lagu soo daro xubno uu ku qanacsan yahay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi arinta gobolka Gado ayay beesha caalamku heshiis gaar ah dhex dhigtay dawladda dhexe iyo Axmed Madoobe oo la sheegay in ay si wada jir ah uga qayb qaadan doonaan doorashada ka dhacaysa Garbaharey oo lagu dooranayo 16 kamid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Axmed Madoobe dalbaday in uu maamulo hase yeeshee dawladdu ay awood ciidan kula wareegtay gobolkaasi oo ay iminka joogaan ciidamo laga daabulay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhammaan dhinacyada dawladda federaalka midowga musharaxiinta iyo sidoo kale maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo horay u diidanaa inay dawladda federaalka Soomaaliya kala qayb qaataan doorashada dalka ayaa u arkaya dhexdhexaadinta ay beesha caalamku wado iyo heshiiska ay garwadeenka ka tahay mid miradhal ah maadaama siyaasiyiinta Soomaalidu ay iyagu isku kalsoonaan waayeen oo ay u qoor dhiibteen dhinacyada shisheeye ee ku lugta leh siyaasadda Soomaaliya Dani Axmed Madoobe ayaa si gaar ah u dalbaday faragelin ay beesha caalamku ku samayso ismaandhaafka doorashooyinka Soomaaliya oo ugu dambeyntii dhacay kadib markii uu qaybsanaha qaramada midoobay ee Soomaaliya danjire James Swan uu istaagay dhexdhexaadinta filla Soomaaliya mucaarad iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland heshiiskan oo la sheegay in dhan walba aysan wax u noqon sidii uu rabay ayaa haddana beesha caalamku waxa ay ku cadaadisay dhinacyada mucaaradka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho waqtigii loogu talagalay isla markaana looga baaqsan lahaa qalalaasa siyaasadeed oo Soomaaliya ka dhaca kana dhashay ismaandhaafka doorashooyinka filla Soomaaliya oo horay doonaysay in doorashada lagu galo qaabka iminka ay wax yihiin oo aan wax laga bedelin gudiyada doorashooyinka ayaa la sheegay in dhinaceeda ay tanaasul badan samaysay kadib markii beesha caalamku ay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ka dalbatay in uu tanaasul sameeyo maadaama uu yahay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed dhinacyada mucaaradka oo dalbanayay in la dhiso guddi cusub ayay beesha caalamku iyagana ku cadaadisay inay aqbalaan guddiga shaqeynaya in wax ka bedel lagu sameeyo oo laga dhigo guddi lagu kalsoonaan karo Axmed Madoobe oo rabay in loo gacan geliyo gobolka Gado ayaa dhankiisa isna lagu cadaadiyay in dawladda federaalka iyo isaguba ay ka qayb qaataan doorashada ka dhacaysa
dhexaysa Garbaharey heshiiska cusub ee beesha caalamku ay garwadeenka ka tahay ayaa la aaminsan yahay inuu yahay kan suurtagelin kara in Soomaaliya ay doorasho ka qabsanto horaanta sanadkan aan ku guda jirnay ee 2021 isla markaana hawlaha doorashooyinku ay bilowdaan dabayaaqada bisha tan koobaad laguna soo gabagabeeyo waqti kooban iyada oo dhinacyada mucaaradka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu ay si isku mid ah uga qayb qaadanayaan doorashada xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa mooshin xilka qaadisa ka wada madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa culays siyaasadeed saaray madaxweynaha galmudug Qoor-Qoor kaasi oo ay ku eedeeyeen in uu ka gaabiyay waajibaadkii dastuuriga ahaa ee ka saarnaa shacabka iyo deegaanada galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa bilihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho iyada oo iminka ku sugan yahay deegaanada galmudug ayaa lagu eedeeyay in uu ka gaabiyay wax ka qabashada dhinaca amniga arrimaha bini'aadanimada iyo ka jawaabida cabashada dadka reer galmudug al-shabaab ayaa waxa ay weeraro joogto ah ku hayaan deegaano badan oo ka tirsan mudug iyo galgaduud siiba caasimada galmudug ee Dhuusamareeb oo ay dhowr jeer soo weerareen deegaanka Ceeldheere oo hoostaga iyada oo la og yahay in Dhuusamareeb ay kamid ahayd goobaha ugu amniga badan gobolada dhexe ee Soomaaliya balse tan iyo markii madaxweyne Qoor-Qoor uu la wareegay xukunka galmudug waxa ay la kulmaysay cabsi kaga imaanaysay dhinaca kooxda al-shabaab oo dhowr jeer xitaa duqeeyay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb dhinaca kale dagaal beeleedyo ayaa ka curtay deegaano badan oo ka tirsan galmudug iyada oo dadka arrimo la xiriira aanooyin qabiil iyo afduub loogu geysanayo xadka u dhaxeeya galgaduud iyo Hiiraan oo dad fara badan lagu afduubtay xilli saraakiil ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliyeed aana qabiil loogu dilay inta u dhaxaysa Gurceel iyo Balanbale taasi oo ay ka dambeeyeen dil loo geystay dad rayid ah oo la sheegay inay geysteen dad huwan shaarka dawladda xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo muddooyinkii ugu dambeeyaan wax kala fadhiya yeelan lana cuuryaamiyay kulamadooda ayaa iminka doonaya in ay dardar geliyaan la xisaabtanka madaxweynaha xilka haya ee galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayna ka hortagaan in galmudug ay dhaqaaqi weydo iyada oo shacabku ay u hanweynayeen in madaxweyne Qoor-Qoor uu noqon doono mid wax badan ka bedela arrimaha galmudug ka jiray sanadaha badan maadaama halkudhigiisii ahaa waaye arag isku wadi kara uu dad badan soo jiitay loona arkayay in uu noqon karo nabadoonka reer galmudug heshiisiin kara kana saari kara dhibaatada ay muddada ku jireen sida ay wararku sheegayaan madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa xooga saaray sidii uu culayska siyaasadeed uga qafiifin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo maadaama ay saaxiibo dhow yihiin kalena shaqeynaya sidii uu kursiga dib ugu soo laaban lahaa Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo taliyaha Nisaa iyo abaal gaar ah ku leh madaxweynaha galmudug oo ay kala shaqeeyeen inuu hoggaanka u qabto maamul goboleedka galmudug qaar kamid ah xildhibaanada federaalka ee deegaan doorashadoodu tahay galmudug ayaa sheegay in al-shabaab ay ku sii xoogaysanayaan deegaanada galmudug isla markaana ay xargaha goosteen dilalka ku salaysan aanooyinka qabiilka oo ilaa iyo iminka xal loola yahay xildhibaanada galmudug ayaa ku saleeyay mooshinkooda xilka qaadista ee madaxweyne Qoor-Qoor ay ka wadaan dhammaan eedeymahaasi ay xukuumaddiisa u jeedinayaan waxaana ay dalbanayaan in madaxweynuhu uu tallaabo degdeg ah qaado inta aanay iyagu xilka ka qaadin hase yeeshee guddoonka baarlamaanka ayaa u janjeera dhinaca madaxweynaha waxaana saaxiibo gaar ah gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Maxamed Nuur Gacal iyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor inkastoo xildhibaanada mooshinka wada ay sheegeen haddii guddoonku uu qaban waayo mooshinkooda in ay qaadi doonaan tallaabo ka dhana guddoonka baarlamaanka galmudug oo la safan madaxweyne Qoor-Qoor madaxweynaha galmudug ayaa isku dayay in ka hor inta aan mooshinkaasi laga gudbin uu qaado tallaabooyin degdeg ah sida iclaaminta dagaal ka dhana kooxda al-shabaab ka hortagga dilalka ku salaysan aanooyinka qabiilka iyo laxaajoodka dadka ka soo horjeeda siyaasad ahaan oo dhinacyada mucaaradka u badan xubnaha garabyada mucaaradka ee deegaan ahaan ka soo jeeda galmudug ayaa la aaminsan yahay inay abaabuleen mooshinka ka dhanka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug isla markaana ay doonayaan in Qoor-Qoor ay meesha ka saaraan iyagoo u arkaya shakhsi la safan filla Soomaaliya oo caqabad ku ah in isbedel ay ku sameeyaan siyaasadda dalka qaar kamid ah xildhibaanada deegaan ahaan ka soo jeeday galmudug ayaa maalmihii u dambeeyay u saacabatumay mooshinkan waxaana madaxweyne Qoor-Qoor dhankiisa uu iminka doonaya in uu ka hortago qulqulatooyinka siyaasadeed ee ku soo wajahan maamulkiisa iyo dhaliilaha xad-dhaafka ah ee loo jeedinayo ee ka dhashay weerarada al-shabaab iyo dilalka ku salaysan aanooyinka qabiilka xogo dheeri ah ayaa laga helayaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eritrea sanadkii 2019 xilli waalidiinta dhalay dhalinyaradaasi ay walaac badan ka qabaan noloshooda kadib warar aan
la hubin xaqiiq ahaanshiyahooda oo lagu baahiyay baraha internetka intooda badanna ka soo yeeray garabyada mucaaradka oo lagu sheegay in dhalinyaradaasi laga dagaalgeliyay waqooyiga dalka Itoobiya oo ay ka qayb galeen dagaalkii dawladda Itoobiya iyo jabhadda deegaanka Tigreega ee TPLF haddaba dhalinyaradaasi halkee laga kala qoray waa maxay sababta loo tababarayo maxaase laga ogyahay halka ay ku dambeeyeen dhalinyaradan oo intooda badan markii loo qorayay loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar halkaasi oo ay shaqooyin ka helayaan maadaama ay xilligaasi ka qalin jabiyeen badankoodu dugsiga sare danaynayeen in ay helaan jaamacad dibadda ah ayaa laga soo aruuriyay guud ahaan gobolada Soomaaliya oo ay xitaa ku jiraan kuwa Somaliland goobaha ku yaala deegaanada Somaliland ee dhalinyarada laga soo qoray waxaa kamid ah magaalooyinka Burco Berbera iyo Boorama dhalinyarada halkaasi ka yimid ayaa la sheegay in barka ay ku biireen waxa sidoo kale dhalinyaradan laga kala qoray magaalooyinka Boosaaso Gaalkacyo Dhuusamareeb Gurceel Caabudwa Muqdisho Beledweyne Baydhabo iyo deegaano kale oo ka tirsan Soomaaliya tababarka dhalinyaradan loo qaaday waxa isku dubariyay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo uu taliye ka yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir markii la isugu geeyay Muqdisho ayaa la sheegay in dhalinyarada loo kala saaray laba qayb iyadoo oo qayb kamid ah ay tababarayso dawladda Turkiga halka intooda badan oo tirahaan lagu qiyaasay inay u dhaxeeyaan 3000 ilaa 4000 loo qaaday dalka Eritrea halkaasi oo ay muddo tababar ku qaadanayaan dhalinyaradaasi loona arbinayo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen ciidamada sirdoonka Soomaaliya muddo ka badan 2 sano ayay tababar ku maqan yihiin dhalinyaradaasi iyadoo aan la ogeyn ujeedada keentay in waqtigaasi dheer uu qaato tababarka maadaama dufcado kale oo ay isku waqti ahaayeen mar hore uu tababarku u soo gabagaboobay hase yeeshee dawladda dhexe ee Soomaaliya qaasatan taliska NISA oo gacanta ku haya tababarka dhalinyaradan ayaa sheegay in la siinayo tababar heerkiisu sareeyo sida laga xaqiiqsaday qaar kamid ah dhalinyarada tababarku u socdo oo la soo xiriiray waalidiintooda una sheegay in ay qaadanayaan tababar aan nuuciisa horay loo soo siin askar Soomaaliyeed oo ay kala kulmeen qatar kala gedisan maadaama qaarkood ay tababarka ku dhaawacmeen intii lagu guda jiray waxaase walwalka iyo walaaca laga qaba dhalinyartaasi uu soo ifbaxay kadib markii xubno ka tirsan midowga musharaxiinta garabyada mucaaradku ay shaaciyeen in laga dagaalgeliyay waqooyiga dalka Itoobiya oo intii ugu badnayd dhalinyaradaasi ay halkaasi ku dhinteen wixii intaasi ka dambeeyay gobolada Soomaaliya oo ay ugu horeyso caasimadda Muqdisho deegaanada Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo xitaa Puntland waxa isqabsaday baroorta hooyooyinka dhalay ubadkaasi tababarka loo qaaday oo ka dalbaday dawladda in ay nolol iyo geeri mid ugu sheegto caruurtooda oo ay sheegeen in ay markii hore ee la qorayayba aanay raali ka ahayn balse loogu sheegay in la geynayo dalka Qatar ayna ka qayb qaadanayaan koobka adduunka ee 2022 lagu qabanayo wadanka yar ee Qatar waxaase ay dawladdu beenisay sheegashada mucaaradka iyo wararka lagu faafiyay baraha bulshada ee ahayn dhalinyaradaasi ay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay waqooyiga Itoobiya iyadoo sheegtay in dhalinyartaasi ay nabad qabaan oo ay ku soo guriyo noqon doonaan dalkooda hooyo iyaga oo tababaran isla markaasina aan wax dhibaato ah soo gaarin saacadii la soo dhaafay qaybo badan oo kamid ah Soomaaliya sida Gaalkacyo iyo Boosaaso waxa waalidiin ku sugan la soo xiriiray ubadkooda oo u sheegay inaanay wax dhibaato qabin isla markaana uu tababarku wiilasha la soo hadlay hooyooyinkooda qaarkood ayaa sheegay in muddo ay tababar qaadanayeen balse bisha soo socota ee February loo soo xiri doono isla markaana ay dib ugu soo laaban doonaan Soomaaliya sida laga soo xigtay qaar kamid ah waalidiinta ay wiilashooda tababarka ku maqan la soo hadleen siyaasadda ugu weyn ee keentay in hooyooyinka Soomaaliyeed ilintooda ay siyaasiyiintu dana gaar ah ka dhexraadiyaan ayaa u dhaxaysa mucaaradka iyo dawladda dhexe xubnaha garabyada mucaaradka ayaa doonaya in dawladda ay ku kiciyaan shacabka siiba waalidiinta dhalay ubadkaasi oo haddii ay dhawowdo in ubadkooda ay ku laadeen ama ku geeriyoodeen dagaalkii ka dhacay waqooyiga Itoobiya fadeexad weyn ku noqon doonto filla Soomaaliya dhinaca dawladdu waxay u aragtaa in mucaaradku ay dana gaar ah ka leeyihiin arrinkan iyadoo aan dhankeeda xitaa soo bandhigin cadeymo ay ku qanci karaan waalidiinta ubadka dhalay hase yeeshee ugu dambeyn waxa laga sugayaa filla Soomaaliya in ay dejiso waalidiinta faraha badan ee Soomaaliyeed ee wali dibad baxaya dalbanayana in caruurtooda meel loogu sheego dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa xayiraad ku soo rogtay wadamo ay Soomaaliya ka mid tahay
wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dhawaaqday go'aan cusub oo ay ku kordhinayso xayiraadda dhinaca socdaalka ee horeyba ay u saartay dalal ay ku jirto Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa lagu sheegay in sababta loo kordhiyay xayiraadda socdaalka ay tahay mid la xiriirta amniga ka jira dalalka ay ku soo rogtay xayiraadda ee Soomaaliya ku jirto. Kuuriyada Koonfureed ayaa xayiraadda ay saartay dalalka Soomaaliya, Yemen, Liibiya, Suuriya, Ciraaq, Afghanistan iyo Koonfurta qaranka Philippines waxa ay ku kordhisay 6 bilood oo hor leh waxa ayna ku eg tahay 31 bisha July ee sanadkan cusub ee 2022. sidoo kale dalalkaasi ayay Kuuriyada Koonfureed ku eedeysay inay ka jiraan xasilooni darro siyaasadeed isla markaana ay ka sii socdaan arrimo aan loo dul qaadan karin, taasina ay tahay sababta ay go'aanka cusub u qaadatay. Koonfur Kuuriya waxay sheegtay in wadamadaasi xasilooni darrada ka jirta ay qatar gelin karto muwaadiniinteeda haddii ay socdaal ku tagaan, isla markaana lagaga digayo muwaadiniinta u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed inay booqdaan wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay. Horey Sacuudiga, Imaaraadka iyo dalalka reer galbeedka intooda badan ayaa uga digay muwaadiniintooda inay u safraan Soomaaliya oo ay sheegeen in wali ay kula jirto lugaha qalalaase amniga muwaadiniintooda halis ku ah. midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay arrinta dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea oo qaarkood la sheegay inay ku geeriyoodeen dagaal ka dhacay gobolka Tigreeg ee waqooyiga dalka Ethiopia. afayeenka midowga musharaxiinta Ridwaan Xirsi Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay in dareenka hooyooyinka Soomaaliyeed ay ka maqan yihiin dhalinyarada lagu tilmaamo mid loo adeegsanayo dana siyaasadeed oo dawladdu ay waxba ka soo qaadi weydo. waxa afayeenka musharaxiintu la yaab ku tilmaamay in wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Dube oo waraysi bixinayay uu dafiray in ay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eritrea, wuxuuna sheegay in arrintaasi ay shaki gelinayso hooyooyinka ay dhalinyaradu ka maqan yihiin. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayuu afayeenka midowga musharaxiinta Ridwaan Xirsi ugu baaqay in uu si dhab ah uga hadlo dhalinyarada tababarka loo qaaday ee la sheegayo in qaarkood lagu laayay dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreeg ee dalka Ethiopia. waxaa kaloo afayeenku uu sheegay in mucaaradku ay ixtiraamayaan dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ay u arkayaan guul u soo hooyatay ummadda Soomaaliyeed, balse aanay marnaba yeeli doonin in la marin habaabiyo dhismaha ciidamada qalabka sida oo dhalinyaro tababar loo qaaday loo adeegsado dagaal shisheeye. wuxuu ugu baaqay madaxda dawladda inay sida ugu dhaqsaha badan u dejiyaan hooyooyinka ku dibadbaxaya gobolada dalka ee dalbanaya in ubadkooda meel loogu sheego. dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa beenisay wararka maalmihii dambe sida weyn baraha bulshada loogu faafiyay oo lagu sheegay in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday Eritrea ay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreeg ee waqooyiga dalka Ethiopia dhex marayna jabhadda deegaanka Tigreeg ee TPLF iyo dawladda federaalka ee Ethiopia. mucaaradka ayay si gaar ah dawladdu ugu eedeysay inay dana siyaasadeed ka leeyihiin kicinta hooyooyinka ubadkaasi dhalay, isla markaana ay doonayaan in dawladda iyo shacabka ay iska horkeenaan. hase yeeshee mucaaradka ayaa dhinacooda sheegay markii ugu horeysay in aanay jirin dan gaar oo ay arrinkaasi ka leeyihiin, ixtiraamayaan dareenka hooyooyinka Soomaaliyeed ee wiilashooda weysan. qarax miino ayaa la eegtay gaariga gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Cariif oo marayay inta u dhaxaysa saldhigga degmadaasi iyo isgoyska Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. inta la xaqiijiyay waxa qaraxaasi ku dhaawacmay 2 ruux oo la sheegay inay ilaalo u ahaayeen gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Cariif, waxaana goobta tagay ciidamada ammaanka dawladda oo sameeyay baaritaan ay ku raadinayaan dad ay ku tuumayaan in qaraxaasi ay ku lug lahaayeen. ciidamada ammaanka dawladda federaalka ayay ila deegaanka ay u sheegeen TV in qaraxa ka hor ay sameeyeen howlgal miina baarisa inkastoo aysan soo bandhigin natiijada ka soo baxday howlgalkan. wadada Sodonka ee magaalada Muqdisho waxaa dhowr jeer ka dhacay qaraxyo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askarta midowga Afrika, mas'uuliyiin dawladeed, ciidanka ammaanka iyo dad shacab ah. gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Axmed Cabdullaahi Cariif waxa uu xilkan la wareegay November 2020 kadib markii uu xilka qaadis ku sameeyay duqa Muqdisho gudoomiyihii hore ee degmada Yaaqshiid. Muqdisho oo waayihii dambe ka xasiloonayd qaraxyada ayaa haatan u muuqatay in dib ay u soo laabteen toddobaadyo ka hor. waxaa isla wadada Sodonka gaar ahaan inta u dhaxaysa Jamhuuriya iyo Fagax lagu qarxiyay askarta Burundi u dhalatay ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida aad ka daawanayseen TV.